marka ugu hore markii lagu arko qof xijaaban waxa way ku yaraystaayaan waxay u maleeyaan inaadan awoodin inaadan ordi karin waxa lagu leeyahay maanta maxaa waa ma buuy barataa inaad noogu cararto magacayga waa Farxiin Mahad waxa ugu dhaliyay oo ugu buuriyay jaceylka aan u qabo kubadda iyo inaan macnaha aan dhiirigeliyo gabdhada walaalada oo aan rabo inay ka muuqdaan sportska inay meel weyn gaari karaan ma tababar aan u galay tababar dheer aan u galay shahaadooyin baan ka qaatay waxaan ka qabtay garoonka Jericho wuxuu ku yaalaa Buurusay sidoo kale Kibira iyo garoomo fara badan wallahi aniga familiga waa ka helay taageero waxaan ka helay asxaabta la ciyaari jiray waxaan rabaa in macnaha gabdho badan oo waxa jira jacayl kubadda waxaan rabaa inay ogaadaan inay awoodaan wallahi caqabadaha aan kala kulmo waxa kamid ah marka ugu hore markii lagu arko qof aad xijaaban waxa way ku yaraystaayaan waxay u maleeyaan inaadan awoodin inaadan ordi karin waxa lagu leeyahay maanta maxaa waa ma buuy barataa inaad noogu cararto caqabadaha waa dareemi karaa laakiin waxay ku xiran tahay qofka bini'aadanka saadiga iska dhigtid iyo saad macnaha dhaqaale wax dhaqaale ah kama helno jaceylka u qabna baa inoo wado xaq dhaqaale iyo mishaar kuma qaadano maxaa la dhihi jiray sidoo kale wax caqabadaha kamid ah ma lahan transport ku aadid meeshii laakiin jaceylka u qabtid waa inaad lacag soo deensataa aadid meeshii waan fiiriyay mar baan isku dayay joojiyay mar aad jirtay aan joojiyay aan shaqo bilooway shaqada aan bilooway baabadana waxay ahayd shaqo aan ahayn fasax lahayn marka jirkana wuxuu la qabsaday exercise-ka marka way ahaan weeday inaan shaqadii fadhiyo inaan baloonigii aan ka ahaan kari waayo marka shaqadii ayaan joojiyay dib ayaan ugu laabtay wallahi waxaan u farayaa in wax walba ay tahay awoodda jaceylka aad u qabtid haddaad macnaha adiga aad iska dhaadhiciso waxaan waa samayn kartaa inaad samayn kartid marka waxaan dhihi lahaa bulshada qaasatan gabdhaha Soomaaliyeed inay soo baxaan inay tusaan inay awoodaan inaad macnaha meher sare ka gaari kartaan ilaa Yasiba World Cup